عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دمان وبدا الصومالية ملك ساجوكتان وأنا عبد القادر محمد عثمان عبد البقر waxaan rabaa inaan video yar ka sameeyo qormo yar aan soo geliyay Facebook-gayga oo ciwaan aan uga dhigay mudane cabdi xaashi cabdullaahi maxaa ku dhacay su'aashaas waxaan isu weydiiyay waa marka koowaad horta mudane cabdi xaashi cabdullaahi waa nin weyn waa nin ummadda Soomaaliyeed aad ugu qiimo badan waa nin midnimada u taagan waa nin sumcad fara badan ummadda dhexdeeda ku leh waa nin lagu yaqaano in uu wixii dalka dad u ah xooga saaro oo ku dagaalamo wixii aan dalka dan wahayna aan lugala soo saqajaamin inta aanan marka aanan gudaha u sii galin barata su'aasha isweydiyo hal laga yaabaa in dadka isweydiyaan mudane cabdi xaashi cabdullaahi waa gudoomiyaha aqalka sare maxaad siga xooga u saartay oo aad uga hadli weysay sidoo kale afhayeenka golaha shacabka mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe waa su'aal meesha ku jirta in la isweydiiyana mudan laakiin waxa weeye laba nin oo isku taariikh ma aha haddaan ku hormaro mudane aadan madoobe waa nin taariikh la yaqaan leh waa nin gudoomiyaha baarlamaanka hore u soo noqday oo dabcan bikul ixtiraam qaab musuqmaasuqa u soo hogaamiyay oo taariikhda lagu yaqaano waa nin hore u soo ahaa hogaamiye kooxeedyadii mid kamid hogaamiye kooxeedyadii ururkii RRA-da taariikhda naftirkeeda uu leeyahay waxa inta dheer waxa jira maqaal hadda caan ah oo ku jira mareega weyn la yiraahdo Wardheer News oo af English ku qoran oo uu qoray in la yiraahdo Cabdullaahi Axmed Nuur oo reer Australia inuu yahay aan u maleynayo oo ciwaan uga dhigay inside the federal parliament of Somalia leadership corruption and scandal the case of Speaker Aadan Maxamed within brackets Madoobe part 2 oo uga hadlayo musuqa ka jira hogaanka maxay yiraahdaa maamulka golaha shacabka waxyaalaha uu ka eedeynayna dabcan waxa ugu weyn saddex shay waa marka koowaad wuxuu leeyahay wuxuu ka qaataa ama si hoos loo siiyaa oo u siiyaa mudane madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud lacag gaaraysa $40,000 bil kasta waxaana inta u sii dheer uu leeyahay lacag 60,000 ilaa 100,000 u dhaxaysa oo la siiyo marka la rabo baarlamaanka in wax la marsado waana sababta loogu bixiyo leeyahay Mr approved ama mudane ansax waay marka wuxuu kale ku eedeynaya uu leeyahay xilligii uu ahaa mid kamid hogaamiyaasha ururka RRA-da in uu gabadh la yiraahdo Faadumo Jibriil oo dadkan activista ah uu ka dhacay ama ka bilqaystay guri ilaa haddana uusan u celinin oo ka haysto iyadoo ay ka soo wareegtay muddo ka badan 20 sano waxa uu sii daran wuxuu leeyahay inta yar hadda baarlamaanka uu joogay ayuu wuxuu gato ku leeyahay hotelka ugu weyn Baydhabo oo la yiraahdo R&B Palace Hotel oo sawiradeeda xitaa uu maqaal ku soo bandhigayo oo dabcan eedeymaha oo dhan waxa dabcan baaray oo hadhow mas'uuliyadeeda loo raacanaya mudane Cabdullaahi Axmed Nuur oo reer Australia asaa sheegayba maqaalkana wuxuu ku jira Wardheer News oo dadkii raba ay ka soo akhrisan karaan ciwaankiisa hadaan kugu celiyo waxa la yiraahdaa inside the federal parliament of Somalia leadership corruption and scandal the case of Speaker Aadan Maxamed Madoobe part 2 laakiin mudane cabdi xaashi cabdullaahi taariikhda ma laha in fact taariikhda uu leeyahay mudane cabdi xaashi waa in uu ahaa ninkii hor istaagay farmaajo kooxdiisa markay isku dayeen dalka inay maaragtay waxay rabaan ka sameeyaan sharciga dalka ku tuntaan muddo kororsi maxay yiraahdaa sharci darraha ay sameystaan oo dalkii xitaa ay maaragtay dagaal sokeeye halis u geliyeen wax kasta oo sharci darra ah wuxuu ahaa ninkii maya lahaa maxaa yeelay jeebka waxa ugu jiray afhayeenka baarlamaanka ayaa jeebka ugu jiro ahaa mudane mursal ama mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan magaciisa saxda ah marka wax isku dayay dabcan inay laalushaan maxaa yeelay waa waxa meesha uu ka soo bartay ama ka soo koobigareeyay ama ka soo minguuriyay madaxweynaha dalka hadda mudane xasan sheekh maxamuud in baarlamaanka qaybo fara badan oo kamid ah laaluush joogto ah la siiyo oo ka baxsan mushaarkooda caadiga ay qaataan ee gunooyinka gudoomiyaha baarlamaanka lacagtaas oo kala u xoogan la siiyo si wax kastaba uu yiraahdo
sida hadda aadan madoobe ayaantan caanku ku noqdo oo 200 iyo intaasaa soo xaadirtay dhammaantood way wada ogolaadeen wax ka aamusay ma jiro wax diiday ma jiro sida wadankaba xildhibaano mucaarad inaysan jirin sida uuna sheegay maxaa yiraahdaa mudan cabdiraxmaan cabdishakuur arsamo yiri tii khilaafada xitaa abubakar sidiiq layskuma waafaqin oo macnaha dad ka aamusay ama dad ka diiday way jirayaan marka say macquul ku tahay macnaha in saas u dhacdo laakiin waa dareemaysayo waa waxa uu mudan qoraaga mudan cabdullaahi maxaa yiraahdaa axmed nuur oo ugu bixiyey Mr Approved ansax waaye marka sidaa daraaddeed aadan madoobe xaggan iska dhignay mudana marka cabdi xaashi cabdullaahi waxaan leenahay waniyahow intaa waa ka sumcad badnayd waa ka sharaf badnayd waxyaalaha maanta mudane xasan sheekh maxamuud uu sameynayo nin dalka aan ku fiirsanaynin inaad ummadda soomaaliyeed ay maaragtay ku wada haysataa hami intaan ka sarreeya ayay kaa leedahay marka su-aalaha la isweydiinaya ayaa waxaa ka mid a mudane cabdi xaashi cabdullaahi muxuu ugu fiirsanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sharcigii dalka ku tumanaya tusaale ahaan siinaya muddo kororsi sharci darro ah maamul goboleedyada qaarkood sida maxaa yidhahdaa galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo marka horena uu siiyey sanad muddo kororsi aan sharci ahayna haddana uu siiyey muddo kororsi kale oo sanad labaada oo sharci darro ah miyaysan ahayn inuu kor istaago yidhaahdo maya waxaas waa sharci darro dalka iyo dadkana uma roona sidaa daraaddeed ansax maha mana yeelayno mana samayn kartid sida uu liq isaga dhigay farmaajo kooxdiisa sidaas la mid ah mise farmaajo iyo kooxda bis uu diidanaaye yani waa siyaasiyo dantiisa khaaska ayuu xasan sheekh ka arkay khalad iyo saxna hadde wuxuu noqonayaa waxa la yidhaahdo rubber stamp ya qalku uu jiidaya macnaha waxaa kaloo ummadda isweydiinaysaa mudane cabdi xaashi cabdullaahi muxuu ugu fiirsanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kala dhantaalaya midnimadii ummadda maxaa yeele shalay waxaa naga maqnayd maamulka somaliland maanta taa iyadoo ay naga maqan tahay wuxuu mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka uu ku sii daray eriyadda maxaa yidhahdaa maamulka puntland haddana waxaa kusii darsoomay maamulkii jubbaland iyadoo aan la ogeyn maamulada kale ee waddadaa mari doono sidaa daraaddeed maadaama madaxweynuhu maalin kastaba uu midnimadii ummadda uu kala dhantaalayo oo wadajirkii ummadda uu kala erdheynayo miyaysan ahayn mudane cabdi xaashi cabdullaahi inuu arrintaa ka dhiidhiyo oo yidhaahdo maya somalilandaba naga maqan kuwa kale nagama go-aan munaasibna maaha in midnimadii lagu cayaaro oo laga yaro waxaa kaloo ummadda isweydiinayaan oo u leeyihin maxaa ku dhaca mudane cabdi xaashi cabdullaahi oo ugu fiirsanayaa dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ugu tumanaya dastuurka oo maalin walbaba uu baal uga soo goosanayo oo uga talanayo jaakad isaga oo keliya la eg oo amaha ku raadiyo muddo kororsi sharci darro ah amaha ku raadiyo soo noqosho iyo doorasho isaga cid aan haynaysa kusoo bixaynin oo kale waxaana leeyahay marka haddee waxaa lagu yaqaana nin aan lagula saqajaamin waxa dalka iyo dadka aan ummadda hor u dhaartay muxuu isha uga fiirsanaya halele isagana ma sida aadan madoobe ayaa fartu gaartay mise wax kaloo ummadda aysan ogeyn ayaa jira walow sumcadda iyo sharafta iyo karaamada ummadda ku leexaya darteed aanan waxaa iyo wax la mid a nin ku kaca aan maaragtay inuu yahay aan loo malaynaynin